su-aasha ugu dambaysa aan ku soo gabagabaynaya waxaa weeye lacag ma ku bixin karaa? jawaabta oo kooban haa, hadday miskiinka u roon tahay. qofka miskiinka hadday u nacfi badan tahay lacag waa lagu bixin karaa. qiimo waa lagu bixin karaa, lacag keliya qasab maaha. qiimaha maxaan ka wadnaa? wixii qiimihiisii oo kaleeto oo waxaan cunto ahayn xataa waad bixin kartaa iyo lacag midna aan ahayn. cunno nooc kale ah oo qiimaheedii ana waad ku bixin kartaa. amaa cunno inta la qiimeeyey in qiimaheedii lagu saleeyaay min ayaami saxaaba iyo mucaawiya reer shaam oo dhan saxaabadii joogtay iyo buurta u qabeen. inta ka dambaysayna de wax nas oo diidayana ma laha. a'immadiiyo saxaabadii hore waxa yidhi qiimo laguma bixin karo caddeeyeyna anigu ma arag. waa fuqahada mutaakhiriinta ee dambe, jiilashii dambe wey. wax nas keliya ag istaagay oo qiyaaska manfacada miskiinka qiimuhu keenaya yirina ma jiro. oo quutul khaalib baa loo wada guuray oo qaybaha qiyaaska laga wada galay. nin iskaabul ah oo saaka baahan oo ciid tahay, laba keliya bar haddaad siiso dheri uu ku karsadiya meeluu dab ku shitana aan haynin, inuu iska tuuriyo inuu dib qiimihii ka yar ugu gado, labadaasaa u yaalla. hadduu dib uu gaday laa qiimihiisii asalka ahayna ma qaadanin walaa raashinna ma intifacsanin, lacag ka yar buu qaatay. haddii adiga 350 kugu tegi lahaydoo isagoo hadhow 250 laga siinayo, maxaad 100kan u khasaarin? ninkan 250 buu qaadane 350 ka uga nacfi badan. haddii aad lacag siisa oo makhaayadda ku leexdo oo uu raashin kaga dhargahayso, ninkii raashin ma cunin, kii cayrinkaa meeluu geeyaba ma hayadee. dab uma shidna, gaas uma hayo, dab shid, biyo soo gad, saliid soo gad, cusbo u soo gad, intaasoo qaxar iyo kharash sooma gelin. laakiin reerkii reerahee deganaayee dab u shidnaa iyagu raashinkaasa anfacaya. hadday dhacda xaaladaha qaarkood in lacagtu ama qiimuhu u nacfi badan yahay waa lagu bixin karaa. intaasaan kusoo gabagabeynayaa kelimaddii sakaatulfitriga.